kiisas waaweyn oo kufsi ah ayaa isbitaalada Soomaaliya ku yaala qaasatan Muqdisho laga shaaciyay 265 kiis oo kufsi ah oo loo geystay gabdho ka yar 18 sano jir. sidoo kale waxaa jiro wiilal yar yar oo ayagana sidoo kale kufsi loo geystay 58 wiil da'dooduna ay ka hooseyso 18 jir. marka kufsiga Soomaaliya uu ku soo badanayaa haddii noqoto يعني dadka dalka joogo iyo ku qurbaha ka imaanaya inay dhalinyarada kufsadaan ayaa soo badanayso maadaama dhalinyarada habeenka ay wareegaan malaayacnigu badan yahay waalidiinta ay ka warqabin oo meelaha la iska caawinaya habeenka waxa arkaysaa cunug yariisa oo 80 ka yar oo meelaha wareegaya. dhalinyarada qaar kufsi kaliya looma geysto muuqaalo ayaa laga duubaa kadibna baraha bulshada ayaa lagu faafiyaa. dhalinyaradaas sumcad dil iyo sidoo kale mustaqbal